qisad ku saabsan ninkii jacaylkiisa aad looga sheekayn jiray qays iyo leela dhex martay ninkii markaa qays ayaa jacaylkii leela ayuu u waashay daraaddeed markaasuu derbiyada iska seexan jiray maalin maalmaha ka mid ah waxaa la arkay isagoo jidaar dhudhunkanaya gidaar derbi buu dhudhunkanaya markaasaa lagu yidhi war qaysow maanta waalidaadii ma waxay kuu geysay derbiga inaad dhunkatid markaasuu yidhi uqabilu daljidaari wa daljidaar wuxuu yidhi jidaarkan aan dhunkanayo isaga maaha waxaan u jeedoon dhunkanaye gidaarkan gadaashiisa leyle ayaa degan oo jacaylkii leylaan u dhunkanayaa buu maalin kalaa la arkay isagoo ay haysto oo dhunkanaya war aygana maanta maxaa kugu salliday wuxuu yidhi aqalkii leyle ay ku jirto ka soo baxay yuu ka soo baxay maxabbadu eeg haddaan ilaahay jecel lahay oo nebigiisa aan jecel lahay sal allahu alay wasalam mujtamaceenna iyo dadkeenna iyo dalkeenna haddii salaada la adimo magaalada intoo baabuurada la joojiyo oo basaska la joojiyo oo maqaayadaha la xidho oo dukaanada la xidho ayay masaajidu camirmi lahayd masaajiduna inama qaadeene bal waa laysa sugi lahay oo la odhan lahaa annaguna han tukana jamacii miskiidkii buu naga buuxiye ka soo dareere baa la odhan lahaa salaada jamaca hadda maan ku xidhan lahay low kaana xubuka saadiqan la aطactahu hadday jacaylku uu dhabkaa yahay waad adeeci lahayd ina almuxiba liman yuxibu muiicu ninba ninkuu jecel yahay buu adeecay dhalinyarada kubadda jecel kuwa kubadda ciyaara isku ekaysiiyaan kuwa heesaha jecel kuwa fanaaniinta la yidhaha bay isku ekaysiiyaan kuwa siyaasadda jecel siyaasiyiinta isku ekaysiiyaan kuwii nebi maxamed jecel nebi maxamed bay isku ekaysiinayaan magaalada madiina ayuu nebigu soo galay calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay madiina yahuuddii la deganayd ansaar oo maalinta cashuuro la yidhaha soomaysa waa 10 muxaram weeyaan markaa buu nebigu ku yidhi waa maxay yahuuddu maalinkan ay soomayso markaasaa la waa maalintii ilaahay nebi muuse uu ka badbaadiyey waa maalintii nebi muuse iyo reer bani israa'iil ilaahay jalla wacala uu badda u dilaaciyey ee dariiqa ilaahay uga jeexay badda ee laga badbaadiyey halaagga ee cadowgoogii fircoonna la halaagay weeyaan nebi muuse soomay calayhi salaam annaguna waxaan u soomaynaa shukri iyo mahadnaq baan u soomaynaa oo waa diintayadii iyo nebigaygii baan ku dayanaynaa markaasuu nebigu saxaabadiisii ku yidhi annakaa uga xaqle muuse sooma cashuuraa kal dambe haddaan gaadhana sagaalaadkan ku dari buu rasuulku yidhi yahuudda muxuu nebigu ku khilaafay caadaadkii kuma khilaafin bal wuxuu ku khilaafay cibaadaadkii buu ku khilaafay mujtamaca muslimiintana maanta caalamka meeshay doonaanba ha joogaane dhallinyaradeenna mujtamaceennu inta badan waxayna saameeyey waa reer galbeedka tobanka cashuura waxay u soomayaan baa la yidhi waa maalintii nebi muuse ilaahay badbaadiyey ee dariiqa looga furay badda fircoon wajeeshihuna laga halaagay markaa waa shukri bay u soomayaan markaa buu nebigu yidhi annakaa nebi muuse uga xaq leh waa soomaynaa cashuuree sooma kal dambe haddaan gaadhana buu rasuulku yidhi sagaalaadkana waan ku darisaa yahuudda u khilaafay cibaadadii buu nebigu yahuudda ku khilaafay innagana maanta dhaqankii baan ka qaadannay tarbiyaddii baan ka qaadannay tacliintii baan ka qaadannay zawaajkii baan yahuudda kaga dayanaynaa tacliintii baan kaga dayanaynaa dhar xidhashadii baan kaga dayanaynaa marka saxaabigii dahabkii nebigu uu ka tuuray inuu qaato uu iska diiday limaada waxuu garanayaa nebi maxamed qadarkiisa sal allahu alayh wasalam waa jiilkaasi qarna alawal waa waxaan lagu gaadhi karayn bay kamid tahay arrimahaasi inay gartaan nebi maxamed qadarkiisa calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid uu nebigu ku yidhi nin ansaariya buu ka yidhi inantaada ii guuri aniga markaasuu yidhi ninkii ansaarigii nicama wa quratu caynin buu yidhi oo nebi allow adiga ayaa ku heli kara buuhi adiga ayaa ku heli kara markaa buu nebigu yidhi anigu ma rabiye waxaan u rabaa julaybiib baan u rabaa julaybiib wuxuu ahaa nin magaalada madiine oo dhan guri walba lagaga sheekaysto la yaqaano dabeecaddiisa
وطبيعات وحال لغو يقان حوغها أخلاق حماء دادك أيو لك افتمي جري حتى هوينكو لك افتمي جري مركز دادك رين مدينة وحا اسكو شاقان قبله إن الجليبيب هايسكي قد السنة من طبيعات دي سؤال في عينين ودمر كان مالها اسكمر مرة يهدو دون لك افتمع مركوانين أخلاق حن ويان أخلاق دي ساسي أن وناك سنين والله قول شاكي سنة يا مدينة ما قول شاكي سنة واني كان نقول نبي قول يا نيكي رين مدينة إن انت هذه أنيك سي مركاسو صحابي جيري ونبي الله هذيك ما إن انت إذا أيابك وحلي كرا هذا هذيك تقول سي وبالنعمة إلهي أنيك يسيو إنها يكون ويكون راح يسنة يعني إن انت يديو حاس هذيك كون نقطة هل بكيري مركاسو نبي قول أنيكو مر بيه لكن وحال الربابور الجليبيب بان لدون يا جليبيب مركاسو حتى أشاور أمها هو يدد بان كتلقى لني يكادبو كي هو يدد بان لا صوت شنيه وحال الرين مدينة عرف دقن وحي لها يعني قبله هدي أي قادان دادي قبلها اللي قرسنيي نيكا قبل دادلي إن أنت دادلي أنتو نبي قوي مادو أيو أورنجر إن أنت يدي ويقان قادي نبي الله حداد إن أنت يدي أدوكو أبدوني سنة وأكو ديار حداد عدك لا أدوني سنة وأكو ديار dadka qofka ad khayr ku tuhmayso inaad inantaada la doondoonata waa min as-sunnah weeyaan Xafsa bint Umar markuu ninkeedii ka dhintay Umar ibn Khattab intuu socday ayuu Uthman u sheegay ku yiri hadaa doonto inanteeda Xafsa waan ku dhisi markaasuu Uthman yiri waan soo fikiri isku noqday markaasuu yiri ya Umar waan fikirayo waxa ii soo baxday sanadka maanta inaan guursane hay sugine wala laga raali ahaw جزاك الله خير بوكيدي هذا مالك قالوا عمر سعدو أبو بكر بلا دونت حفصة يا أبا بكر الصديق هذا دونت هنا حفصة وكودسي وكوديا مركز أبو بكر وكأمس لماذا محو عمر إن أنت حفصة وعثمان يا عمر ويا أبو بكر وقبر دقيا ما تقانا عرفي قبرقة مسلمين تو أي لهايا وحا كمدها إن أنتو هدي قادك دادي قبلها اللي قبور سنيي وحا وصوها صاوايا أبهد walaalkeed adeerkeed iyo abtigeed halka inagu aan leenahay soo eegeego arwaxan ilaa ya abba mid shaqeeyo oo ndeeya waliba hay'adaha u shaqeeyo hay'adaha oga hay'adaha kharash badan bariyahan moogta la ilaaha illa allah soo eegeego maaha adal inantaadu inay dibadda u soo baxda maaha waqarna fi buyutikunna inantaadu waa inay xagga dambe fadhidaa jilbaabka ugu horeeya gabadha muslimadu ay xidhanayso waa inay guri joog noqoto weeyaan baahideeda wixii dibadda ka yaalana markay u baahan tahay ama aabaheed ama walaalkeed ama inankeeda ama adeerkeedu aabba la dhashay ama abtigeed hooyo la dhashay ama walaalkeed baa soo kaxaynaya soo raacaya limaada maxay u soo raacayaan maahin tasallut iyo saytarayn gabdhaha la saytaraynayo oo ikhtiyarka laga qaadayo hamoodin inay yahay muslimadii bal adigu ku ilaalinaya waa gaarda goorkaagi waa kii ku ilaalinayay adigu ka ilaalinaya cadowgu ka ilaalinaya tuugtu ka ilaalinaya dadka mujrimiintu ka ilaalinaya fasaqadu ka ilaalinaya sida lacagta iyo dhaymanka meel qaaliya loo dhigo meel aan la arkayn loogu rido ayaa gabadha muslimadda muuminada ay diinta islaamku meel fiican u dhigtay aday ku ilaalinayaan إننا ما أنت واحد لقى داعية دين الإسلام كدوم مرك اختيار كيف كقاضو أقل هذا فردي بيتري أقل كفردي شرفت هذا أقل كنا الفرد كوكو فلان شرف بيكوت أقول كنا الفرد صدّون دون معها أبي بكر عمر السجا أدون أوها ساوي ننتيسي إن أنت هذا الشيء ذاتك الخير كتوه ميسو إن هذا بردك تانا عيب معها ما أنت إنك حاجة نوح على أركا هذونك إن أنت سأو رجع أوير وصوها ساو وحلا يسألون بوسليه هاي ورمتوع عقلوها يا ونوع عمينا يا ماي عمر باس عثمان وبندقي عثمان وجوابي أبو بكر بوم بندقي أبو بكر وكاء مصي مدير كذب وحصودون حفصة رضي الله عنها نبي محمد باصودون عليه الصلاة والسلام لأن مركب النبي قرصه مركب guurkaasi uu dhamaaday ayaa maalin dambe Umar iyo Abu Bakar baa kulmay Abu Bakar baa hadalka qaato yiri
يا عمر ملها قلبك وحبادي يقول هيسا مرقاسوا له ها أقول هيا ورتابان عثمان بندقي وجواب وفي ويسيي هذا كان واقو بندقي وهذا كان مستي هاي أنا إماد أورن ما أنا إماد أورن مرقاسوا أبو بكر كويري أنا وحان أوجا نبي محمد وحفص هذا الهيان أوجا مرقاس سرت النبي جاينا شيئان ديدنا هدو نبي وحفص ودافي لها وسكديني لهانا والله أنا كأقرص لها بكي ساسا مركا النبي كو أوجا رير مدينة رير كان أنصارات قبل دود إني كان قاعدي وحاو النبي كو أوجا بالليري نكسو أنصاريا حتى إنتي سوقان قاعدو إنتو النبي قوي ما دو أورنجري يا رسول الله قبل دايدي وي قاعد دادي قبلها لقوا بحين إيه حتى هذا يقول دونتنا واقفوا ديار حتى العيد كلا أوربتنا وديار ساسو النبي مركا أوي ديستو كويري إن أنتي نيدسا مركا سور النعمة وقرة عين يا رسول الله والنعمة إيش يدرو يكون قبو يكون راح يسنيه والهشا مركا النبي كويري أنا ما هو حربه وحنربا جليبيب نواني كان نيسو شجوا والله يقنا طبيعة ديس مركز جليبيب ها وستاجنكي إن أنت هو يدد بالله صوت الشني يد بليك هذه مركب النبي يقول هاي الله صوت الشو مركز النبي صحابي الإسلام تسيب ويمدي وحول إن أنتني والله صوت دوني أيا صوت دوني بيكوتري مركز الرسول كلا هيبقى صوت دوني مركب بيتر النعمة وقرة عين وقرة عين والله والنعمة وأنا كل حيسنا إنه إنه كفر حياة وانسيني نبي محمد مركز سوري نبي يقول نفتي سأمربو مركز بيتر هذا يوربا مركز سوري جليبيبا ساسيتري جليبيب مركز سيتري ماي جليبيب مصيني ننتهي هذا هبل با صوت دوني وانو ديني هبل كلا صوت دوني وانو ديني جليبيب واني كاتقاني أدوغنا إن مقالة مدينة دان لغو هذا الحياة لغو بلمي إنان بلو ديسين war Julaybiib u dhisamayna qofka nabigu ha keeno hadalka markay ku tiro ninkii soo jeestay ayay inantii oo xagga dambe ku jirta ayaa tiri hooyo aab aniga dhageysta ma nabi maxamed baad amarkiisa celinaysan bay ku tiri wala fiirso ma nabi maxamed alayhi salatu wassalam oo aniga ibixiyay oo Julaybiib yiri siiya miyaad amarka nabi maxamed celinaysan oo diidaysan والله بيتري ها هلك النبي محمد رالي ويقال النقضي أنا قلنا رالي بانكا هاي بحية بيكتر مركز كتر الإسلام تيوارون هذا الكاسية أرادوا النبي قوشة كده هلك رالي قاعدوا بعد كلا نقطة إن أنت يدي أنا قلنا رالي بانكلا نقطة مركز صحابي جيب النبي قوي مدور النبي الله إن أنت جليبيب وانسيني أرو جوركي وجليبيب وديار قروبيو أيا وحاد عدي فزعة وحال مغلي عدو إنه صو صعدو عيدا كي بحا يبو مركا جليبيب وراعي مركي الله دقال لمي قال دي اللي جبيه لله يي بحصدين ميت كي داوعي لكالا قرانا يو أيو نبي قو صحابة دي كويري ورانو قو نمبان تبايا ورنمبان أركي لاحي مركاسا لقل النبي الله وانينكي مركاسا جليبيب أوي markaasa meedkiisa la doonto waxa la arkay isagoo 7 mushrikiin intuu dhulka dhigay isagana markii dambe lagu daro meeda oo dul yaala markaa buu nabigu yiri wallahi kaas Julaybiib anu iga mid yahay aniguna isaga kamid ahay 3 jeer ayuu nabigu hadalka ku celiyay ila anigu Julaybiib anu iga mid yahay ana isaga kamid ahay waa maxay sidii aan raaliga ka ahaabo u dhintay weeyaan waa iga mid maalinka qiyaamahana jannada waa rafiiqiga weeyaan markaasuu nabigu gabadhii buu xasuustay gabadhii cajiibka ahayd markaasuu ilaahu gabadhaas ilaahu arsaaqada sida roobka ilaahu kaga dhig khayrka ilaahu sida roobka kaga dhig maciishadan ilaahu ciriiri weligeed ha ka gelin buu rasuulku yiri gabadh armala oo ka baraka badan oo ka xoolo badan bay yiraahdeen asxaabadu nama soo marin gabadha mooyaan laana ducadii nabigeena ku dhacday sallallahu alayhi wasallam